kulankan oo socon doona muddo 3 maalmood ayaa waxa ka qayb qaadan doona dhammaan shaqaalaha iyo macallimiinta jaamacadda magaalada Burco way wehelinayaan maamulka jaamacaddaas iyo waliba boorka sare ee jaamacadda magaalada Burco ay leedahay kulankan ayaa muddada uu socdo waxa lagu baran doona laguna gorfayn doona hanaanka ugu habboon ee loo tayeyn karo arrimaha maamulka iyo shaqada ee jaamacadda magaalada Burco sidoo kalena waxa diiradda lagu saari doona lagana hadli doona sidii kor loogu qaadi lahaa tayada waxbarasho iyo waliba horumarinta jaamacadda magaalada Burco maadaama jaamacadda magaalada Burco ay tahay mid ka mid ah hudub dhaxaadyada tacliinta gobolka Togdheer gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda magaalada Burco Ismaaciil Carraale ayaa isna sharaxaad ka bixiyay nuxurka kulankan loo qabtay maanta shaqaalaha jaamacadda magaalada Burco shaqada iyo horumarinta aqoonta shaqaalaha ka shaqeynaya shaqada iyada ee jaamacaddu ay hayso waxa marka hore mudan inaanu sira dul taagno jaamacadda Burco visionkeeda iyo missionkeeda dad muslimiin aynu nahay waynu ka wada dharagsanay waxa inagu filan baabka uu baabeeyay Imam Bukhari rahmatullahi alayh وليهي العلم قبل القول والعمل العلم قبل القول والعمل علمه إنه كهرية قولك إي عمك الله وضع ودينعية بدن ككوبان سلطان عثمان سلطان علي مدر أو كميدة سلادين تقوبل كتقدر أي أسنا هالكاسي هذا الله دردارنا كسو جيديي مروكاه اللي يكولن كاسي فروتان كيسي مانتا برهان يبورهان inta markuu hore isla eegtaan jaamacadda waxa ka dhimanaya daliilaheeda iyo halkay ka socon laadiyo haday hoos u socoto iyo hadii kalaba yaani waxa weeye haday idinku sii kari weydaan in dad qusuusi oo laga maarmaana yaani waxa weeye in u yeelataan oo si aan ahayn saxaafadda iyo publican oo kale aydan ila xadka maaragtay ugu soo bandhiga baan idinku baraarujinaya halkaana horta intaasaan ka oranay gudoomiyaha boorka jaamacadda magaalada Burco Maxamuud Aadan Dari oo ka mid ah duqeyda gobolka Togdheer ayaa ku dheeraaday marxaladihii kala duwanaay ee soo martay jaamacadda magaalada Burco isagoo tilmaamay in xilligan jaamacadda magaalada Burco ay u baahan tahay kaliya in la tayeeyo aqoonta shaqaalaha marka ugu horeysa oo la dhacameed siday u kala sareeyaan baa loo kala guraaye Maxamed Ali intuu yiri uma arintuba ku dhantahay Ismaaciil ugu horeeyay waxayna tahay boorka waa arkaysan University of Burco ku taala hadaba waxa halka ku qorani dees dhaqaajin maayaan hadaynaynay inagu dhaqaajinin jaamacadda magaalada Burco kulankan oo ay ka hadleen mas'uuliyiin aad u tiro badan ayaa sidoo kale waxa ka hadlay Mr. David oo ka mid ah macallimiinta jaamacadda magaalada Burco madaxa suuqgeynta shirkadda isgaarsiinta ee Talisom iyo aqoon-yahano kale oo ka mid ahaa aqoon-yahanadii lagu macsuumay kulankan maanta loo qabtay jaamacadda shaqaalaha jaamacadda magaalada Burco ee lagu tayeenayo aqoonta shaqo iyo tacliineed ee ay u hayaan jaamacadda magaalada Burco Cabdi Sattar Sabri shabakada caalamiga ah ee Caynaba News Burco